السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waan ku soo dhaweynayaa daawade waxaana kugu soo dhaweynayaa taxanaheennii inoo saacday ee ka hadlayay xasuusihii guwaantinaamo inagoo maanta eegi doona xalqadeena labaad waxaynu kaga hadli doonaa barbaarnimadii iyo waxbarashadii qoraagu wuxuuna qoraagu ku bilaabay hadalkiisii sida tan garan maayo qaabkii aan wax kugu sheegi lahaa balse itaalkayga waxaan isku dayi doonaa inaanan waxba ka hagran ilaa uu carabkaygu karayo inuu dhaho ereyga u dambeeya ee ku jira xusuustayda. waxaan ku dhashay ku barbaaray kuna noolaa waqooyiga suudaan deegaanka buruuqiiq xagga koonfureed waxaa ka soo xadeeya magaalada arugo waqooyina magaalada karma oo lahayd ilbaxnimo fog barina waxaa kaga teedsan mashruuca dhulbeereedka albaruuqiiq halka xagga galbeedna ay ka xigto jasiiradda artagaasha oo ah halka aabayaashay iyo awowayaashay ka soo jeedaan. waxaan dhashay sanadkii 1974 waxaan ku barbaaray ciidda tuuladan degan ee aaminka ah kuna indha baraqsaday astaamaheeda taariikhiga ah iyo luqluqyadeeda. dhegahaygu waxay la qabsadeen dhegaysiga hoonka basaska iyo gawaadhida xamuulka ee qaarkood u baxayaan khartuum kuwo kalena ka imanayaan kuwaasi oo wada socodsada xamuulka timirta iyo fuulka masaarida. sidoo kale waxay dhegahaygu la qabsadeen sawaxanka suuqa iyo buuqa saylada xoolaha qaylada gaadhi faraska iyo dhaqa caraabaha ee dhan kasta tuulada uga baxaya. goobaha taariikhiga ah meelihii u horeeyey ee aan arko waxaa ka mid ahayd qalcadda dufuufa. markastoo aan xaggeeda eegana xusuustu waxay ku laabanaysaa taariikho waxaanan dareemaa wanaagga goobta naftayda ka buuxinaysa raaxo iyo deganaan. subaxnimadii ayay qoraxdu ku fidisaa fallaadhaheeda dahabiga ah tuuladan iyadoo kusoo kalahaysa si ay hurdada uga toosiso uguna fooldhaqdo biyaha niilka sidoo kalena ay indhaha ugu furto quruxda dabeecadda ka iifaysa xeeliyada iyo jasiiradaha ku kala firirsan webiga niil hareerihiisa iyo bartamihiisa. runtii waa tuulo dareenka ku dhaqaajinaysa si kaliya laaba ayay cidda imanaysa qalbiyada ugu furtaa iyadoo aada u soo dhoweynaysa dhismayaasha qadiimiga ah ayaa ugu horeynba indhuhu qabanayaan ka hor inta aan magaaladaba la gelin. waxaan yaraantaydii kusoo noolaa tuulada waxaan soo cabay biyaheeda macaan waxaanan kusoo ciyaaray gebiyadeeda kana dhaxlay sharaftii iyo isla weynidii aabayaashay iyo awowayaashaydii nuubiyiinta ah iyo asalkoodii hore. waxaa la igu galladay hooyo naxariis badan taas oo dhabarka u ridatay in ay nagu barbaariso barbaarinta ugu wanaagsan. caruurnimadaydiiba waxayna bartay adkaysiga halganka nafurka iyo isku filnaanshaha iyo dadka oo wanaag lala jeclaado. 7 caruur ah ayaanu ahayn. aabo isagu yaraantiisaba wuxuu qabatimay nolosha qurbaha iyo hayaanka masar lubnaan iyo kuweyt ayuu isku maray naftiisa wuxuu u diiday nagaanshiyaha raaxada iyada darteed. 10 sano oo uu qurbaha joogay waxay ushii tarxiilku soo tuurtay bilowgii sagaashameedyadii qarnigii tegay. waxaa lig ka dhigtay deegaanka xaaji yuusuf halkaasi oo qoysku uga sii horeeyey xagaagii sanadkii 1983. deegaanka xaaji yuusuf ayuu qoysku yimid markaa ilmo yar oo aan qaan gaadhin ayaan ahaa. waxaan bilaabay tallaabooyinkii u horeeyey ee heerarka waxbarashada iyo aqoonta. goobtii iigu horeysay waxay ahayd dugsiga hoose ee shacbiya kaas oo ku yaalay xaafadda shacbiya ee magaalada baxri. kadib waxaan u wareegay dugsigii dhexe ee xaaji yuusuf. waxaan dugsigii dhexe iyo saraba uga sii gudbay dugsiga dawliga ah ee baxri. intii aan dugsiga ku jiray waxaan samaystay saaxiibadaydii u horeeyey sidoo kalena waxa aan dhidibada u taagay bridge-ka xiriirka saaxiibada dugsiga iyo kuwa kaleba.
waxaan bartay wax ka mid ah nolosha cusub ee magaalada sidoo kalena waxa aan qaatay khibrad dhugmadeyda ka dhigtay in marka ka dambeysa ay sii kobocdo. qaabkaa cusub ayaan kula qabsaday wax kasta oo ka jiray magaaladan buuqa badan. waxaan bilaabay inaan qaato aragtiyo gebi ahaanba ka duwan kuwii tuulada, qaatona dhaqanka reer magaalka anigoo iska ahaa qof ay ku jirto ruux tuula joognimada ku faanta. waxaa kale oo qasab noqday inaan ka falceliyo lana qabsado noloshan magaalada maadaama aan noqday qof ka mid ah. sidaa ayayna noloshaydu kula qabsatay. waxaan u fadhiistay imtixaankii shahaadiga ahaa ee Suudaan, waxaana keenay dhibco ii suuro gelinaya in aan ku biiro kulliyadda shareecada iyo qaanuunka ee jaamacadda islaamiga ah ee Darmaan. waan ku biiray fasaladeedii hoolalkeediina waan fadhiistay in muddo ah, anigoo cilmiga iyo aqoontaba ku qaabilay ruux adkaysi leh, xamaasad aan xuduud lahayn, iyo garaad u furan in uu waxbarto. balse alla ayaa qadaray in ruuxda adkaysiga leh iyo xamaasadaasi marba marka ka dambeysa ay sii danto ilaa ay toos u baaba'do, xusuustana ay boos ku yeelo weydo. akhriste waxaad weydiinaysaa maxay tahay sababtu. waxaan ku leeyahay waxbaa noloshaydii kusoo kordhay kaasi oo maankaygii ka dhigay in aan isaga uun ka fekero. fasalladii jaamacaddana aan joojiyo, una jeesto jidka hayaanka iyo qurbowga sida badi dhalinyartii sameeyeen. badi waqtigayga waxaan kaga fekeraa sidii aan uga dhabayn lahaa yoolka ah, sidii aan hanti u yeelan lahaa, gurina u dhisan lahaa, gaadhina u iibsan lahaa, sidoo kalena qoys u samaysan lahaa, waalidka iyo walaalahana aan u daryeeli lahaa. duruufta dhaqaale ayaa igu qasbaysa arrinka, gaar ahaan intii aabbo dibadda ka soo noqday ee uu waddanka saldhigtay. ugu dambeyn waxaan helay fiisihii aan ku geli lahaa Sacuudiga, taasi oo kaalin mug leh ku lahayd isbeddelka noloshayda una jahaysay meel aanan marnaba filayn. si degdeg ah ayaan alaabtaydii u xidhxidhay, qoyskiina u sagootiyey anigoo cagta saaray jidkii madaarka. waxay ahayd riyo aan ku taamayay mar uun in aan run ka dhigo, wuxuuna ahaa yool aan higsanayay oo aan aada ugu qanacsanaa helidiisa. balse waxaad moodaa in qadarta alle iigu tala gashay riyo aan weligay igu soo dhicin. naftayda waxbaan ugu tala galay, halka allena wax kale ugu tala galay anigoo uurka ku jira. wanaag idinku jiro waxaad jeclaanaysaanna shar idinku jiro, alle ayaana u cilmi badan, idinkuna ma ogidin. si aanan Sacuudiga gaadhin, xisbi aan taageeraana muu jirin, madhabaan si gaar ah u haystaana ma jirin. keliya waxaan ahaa muslim guto waajibaadka diiniga ah ee aan kala soo tegay gurigayagii. qur-aanka uu intaa kusoo afbeeray barbaarnimadiisii iyo waxbarashadiisii. waxaynu uga sii gudbi doonaa insha allah xalqadeena saddexaad. inta aynu xalqatan oo kale aana ku kulmi doona, waxaan dhammaantiin idinku dhaafayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.